madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amray inuu shaqadiisa sii wato Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xilka madaxda hay'adda sirdoonka Soomaaliya uu ka qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xalay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa. Bayaan uu soo saaray madaxweynaha waxaa lagu sheegay in go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inuu yahay mid baalmarsan xeerka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ka jawaabay qoraal uu soo saaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kaas oo uu shaqada uga joojiyay madaxa hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir markii uu arkay qodobada 87 iyo 90 ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha jamhuuriyadda uu yahay ilaaliyaha iyo horumaryaha mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. Markii uu arkay qodobada 97 iyo 100 ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyayaasha ciidamada qalabka sida, taasoo ku eg tala soo jeedin iyo fulin howlaha horumarinta siyaasadda, dhaqaalaha iyo maamulka dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya isagoo dareensan muhiimadda ay amniga dalka u leedahay hay'adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha waxa loogu yeero argagixisada ku hayaan Soomaaliya, waa sida qoraalka lagu yiri, iyo weliba saaxiibada caalamkaba. Wuxuu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobadan: 1. Go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble inuu yahay mid baalmarsan xeerka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. 2. Waxaa la farayaa taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir inuu sii wado hogaaminta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo weliba wareegtadii madaxweynuhu uu ku magacaabay. 3. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa in ay horkeento golaha amniga qaranka warbixin laga sugayo marka la muddeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga qaranka. 4. Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu farayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble in golaha xukuumadda in ay si hufan u gutaan mas'uuliyadda ka saaran dhamaystirka howlaha doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka Villa Soomaaliya.